إلى كريه جوريستي وحيل جوريستي مرشحي وطني يكيو إحدانا كبدا وضع عياره حرقني ناكتي قالوا مركنا كبحنا وراء كبدا وضع عياره مالت هاي ما أنت وحن لا هاي حزب جاري مجوريسين صدق حزب جوريستين سومال ناد بجوريستي ما أنت منهم الحمد لله إلهي باب مهده والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت واحد كم تاعي معلومات تاريخية Somaliland maanta tallaabo horumar ay qaaday dhinaca siyaasadda nabadgelyada Somaliland oo dhan maanta waxay ku guuleystay hawl culus oo aanay dalalka la ictiraafsan yahay ee naga dhaqaale badan badankoodu aanay gaarin taana awood aanu leenahay dadka dheer kumayna gaarin ilaahay mahadiyo ku gaariyo kaalmada ilaahay cid kale inooga abaal sheeg kartaa ma jirto galada ilaahayna siiyay kolka koobaad waxaan ugu mahadnaqayaa shacbiga Somaliland meel ay joogaanba mar labaadka waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiyada qaranka saddexda xisbi kulmiye iyo wadani iyo oo dhammaan taageerayaashooda iyo madaxdooduba si la xajecel leh wadaninimo leh nabadgelyo leh mustaqbal dhowr leh ay u tartameen oo ay howlgaleen waxaa kaloo mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahoodaba iyagana waynu mahadnaqaynaa hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo barashar waa iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Somaliland oo runtii inoo suurtageliyay dal jira xuduudda daafaca gudihiisa kala nabad gala tartanka intaa la galana iyaga oo naftooda horeyaala oo xaasaskooda iyo carruurtooda aan danayn ee ta qaranka ka horreysiya iyagana ugu mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa saaxiibada Somaliland ee caalamiga ah ee dawladda leh ee haddii la urur leh dhammaantood taageerada ay nasiyeen ee aqoon leh ee waana leh ee dhaqaale lehna waynu ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxaynu u mahadnaqaynaa bahda warbaahinta Somaliland saxaafadda oo intii ololaha socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawlgalay shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayna waa mahadnaqaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labada xisbi oo cod iyo wadani oo laba xisbi oo muddo kala madaxdooda iyo taageerayaashooda ay yihiin gaar ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila howlgalay guusha dhiciyay maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guuleysan saddexda xisbi guuleysteen Somaliland baa guuleystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaynu nahay innaga oo Somaliland wax kasta oo Somaliland ka tirsato qardoofoyinku baraad buu yimaadaa qoyskaas khilaafa aabiyo inan hooyo iyo inan laba baa cimshir wada leh xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen Somaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaato waxa quray wadana ahayd in waliba war ana ku hawshaasaan hayatayda hore loogu maraya walaaltinimada daldhis baa lagu tartamay xumaan iyo xisb ummadda kala culeysiyo midna u meynaan galin saxaafaduna saas dhexdhexaad ku tahay maanta intii baynu haynaa waa qasab kubadda yarada aragteen haddii qola laga badiyo way yaran qawmiyoota waa bini aadmigu waa wax inagu abuuray haddii xisbi wax diidan yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa Somaliland laantood hore u mari mayso haddaynu kala tirsano cadowgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaqnabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu soo dhamaysan jireen dhamaysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobaynaa waxaan kusoo koobayaa Somaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku soo karto Somaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala wada cadow Somaliland waxay hore u mari kartaa markaynu soo maadno aniga oo maanta ummaddu karaameysay oo cod ku badnaysay maaha inaan kaliya guuleystay waxay la guuleystay murashaxii wadani iyo kii cidba labadaba waxaan ka codsanayaa si karaamo leh oo wadaninimo ah inaanu isugu maadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo waxaan ku soo koobayaa oo ugu dambaysiinayaa dalkeenu horumarkiisa iyo waxay noo baranaa midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaaro حرقنا يناكتي
garoonka marka hore ka baxana walaalo kubaddana wada ciyaaro meel ay tahay nin kastoo wax tirsanaya urur kastoo wax tirsanaya qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maaragtay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano wax leexay gar yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa la kalaameeye anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tiirsanaya in aniga lagu tiirsado iyo xisbigeyga kulmiye ahaana saasaanu diyaarunahay ugu dambeynta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumaddiisa oo maanta halkaa aynu joogno ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa leegay qaadeen waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u diraynaa dadkii inagaga dhintay mudaharaadyadii waagii dhaweyto oo runtii nasiib darro ahayd inay ciidu inagaga dhimato kuwii dhaawacmayna ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaanu ku ducaysanaa su-aalan oo mida horumarka cadowgeenna oo farxin cadowgeenna oo jaba somaliland guulaysto aynu isu nimaadno dalkeenna horu marino